السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسكسو نقد وناكسن أصحابتينا ميلو البان كلا جوجنو إلهي سبحانه وتعالى هاي نقوة حفتيو ومركي وقوديرا إيه هوذا أنكو كلا مقنا هاي أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا قول درردو واقيب كمد نولشا دمانتين والله كلنا مر أما مرر بدن لكن واحد دادك قوليستي إيكوا قول دريستي كلا سوعة وكرتيدا أي أوليهين إني وحكبرتان قول درردو دا أو أي هوري ووسي سعودان هذا بوام حي سببت أقوين ee fashilka ama guuldarrada sababta ugu weyn ee guuldarradu waxay aad ugu fududahay inaad quusato isdhiibto markii aad ka tanaasusho ka tagto riyooyinkaaga iyo yoolalkaaga waxaad guuldaraysatay guuldarro dhab ah dhib ma lahan sidaad u karti badan tahay ama aad u caqli badan tahay ama duruufaha kugu hareeraysan u yihiin kuwo wanaagsan haddii aadan lahayn adkaysi iyo go'aan qaadasho weligaa guul ma gaaraysid dariiqa guusha marna ma fududa waxa ka buuxa qalqaloocooyin leexleexasho dibudhac iyo caqabado badan laakiin waxa kaloo dhinac socda oo ka buuxa fursado kuu saamaxaya inaad samayso horumar koritaan iyo inaad mar walba wax kororsatid oo wax baratid mar kasta oo aad guuldaraysato waxaad haysataa fursad aad ku barato wax cusub oo aad aqoontaas aad u isticmaasho kuna dabaqdo isku daygaaga xiga ha ka cabsanin ha ka baqin guuldarrada isku soo wada duub guuldarradu waa qayb ka mid ah safarkaaga guusha wax kasta oo aad samayso marna ha quusan marna ha niyad jabin horay u sii wad si kastoo ay arrimuhu kugu adkaadaan arrimuhu u adag yihiin xasuusnow guusha ma aha bardhamaadka ee waa safarka aad ugu jirtid gaarista waddada keli ah ee aad ku gaari kartana bartilmaamaadkaad u socotid waa inaad mar walba horusocod samaysid tartiib aad u socotid qorshahaaguna uu yahay inaad mar walba maalinba maalinta ka dambaysa aad kasii fiicnaanaysid guushaada iyo hadafkaagana aad kasii gaaraysid marka qaado tallaabada xigta maanta hana u ogolaanin fashilku iyo guuldarradu inay kaa hor istaagaan waddada aad guusha u mari lahayd waad ku mahadsantihiin daawashada fideogan haddii aad wax ka faa'iiday please la wadaag asxaabtaada waxaan idinka tegayaa fi amaanillah dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu